kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalkeena runta wararka waxaa warkeena inta badan aan kusoo qaadan doonaa midowga Yurub oo lacag 6 milyan oo dollar ah ugu deeqay wadanka Ukraine oo sheegtay inay soo riday diyaarado laga leeyahay wadanka Ruushka. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine Valery Falavyshki oo sheegay in ciidamada Ukraine ay haatan diyaar u yihiin inay dagaal ay la galaan Ruushka. Mareykanka, Jarmalka iyo Faransiiska oo lacago fara badan haatan ugu deeqaya wadanka Ukraine ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa. haddii rabbi qadaro janalkeena ku cusubtahay subscribe noo saar janalka, wararkeena la leegay share iyo commentiga noogu dadaala. aan ku bilaabo midowga Yurub ayaa lacag 6 milyan oo dollar ah ugu deeqday wadanka Ukraine kadib dhibaatooyinka dagaal ee ka jira oo ku qaaday wadanka Ruushka. Ukraine ayaa haatan dowladaha kala duwan ee midowga Yurub waxay 6 milyan oo dollar ugu deeqeen militariga wadankaasi. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in dhibaato badan ay ku noqonayso duulaanka uu ku qaaday wadanka Ruushka. wadankan dariska la ah Ruushka ayaa haatan waxa uu muuqanaya in taageero caalami ah uu helayo, iyadoona dunida oo idil ay si weyn u taageerayso, iyadoona madaxweyne Zelensky uu si cad u sheegay in uu u baahan yahay waqti kan malaayiin hub ah in uu helo. haddii sidaasi ay dhacdo hub fara badan ay hesho wadanka Ukraine, Ruushka ayaa dhibaato badan ay ku noqon doontaa. dhibaatada ugu weyn waxay kala kulmi doontaa dhaqaalaha haatan ay leedahay wadankaasi. dhinaca kale, Ukraine ayaa sheegtay inay soo riday gantaal uu soo riday duqeymaha Ruushka ee hawada Belarusia. taliyaha ciidamada dalka Ukraine Falavyshki ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay soo rideen gantaal nooca loo yaqaano cruise missile oo ay soo riday diyaaradda nooca Tu-22 oo laga leeyahay dalka Ruushka. ciidamada Ukraine ayaa lagu soo waramayaa inay iska caabin xoog leh kala hortagayaan ciidamada Ruushka ee duulaanka ku jooga dalkaasi xilli ay ku hareersan yihiin ay duqeynayaan magaalada caasimadda Kiev maanta oo Axada. sida laga soo xigtay xogta militariga Mareykanka iyo Ruushka ayaa hadda haysta ugu yaraan 50% ciidamadooda duulaanka ku ah in lagu qiyaasay 150 milyan ee gudaha wadanka Ukraine. falanqeeyaasha la wareystay ayaa soo jeedinaya in militariga Ruushka laga yaabo inuu ku dhaco dhibaatooyin waaweyn isla markaana xaalad adag uu geli karo militariga Ruushka. waxa uu sidoo kale wajahayaa dib u dhacyo uusan filanaynin, waxaana ay qaadanayaan dhaawacyadooda. Ukraine ayaa waxa ay qasab ku tahay inay maxaabiisteeda ay badbaadsato isla markaana ay ka hortagto dagaalka guud ay haatan ay kula jirto ciidamada wadanka Russia. taliyayaasha guutooyinka Gold Davis oo ka socda macadka caalamiga ah ee daraasaadka istiraatiijiyadda iyo sidaa darteedna Ruushka hadda waxa ay ku dhiirigelin doonaan in uu dardargelinayo xoogaga uu ku keenayo khilaafka ilaa hadda, waxaana ay adeegsanayaan in dhibaatooyinka dagaalka militariga hubka kuwa ugu xun. way iska caddahay in Ruushka uu leeyahay faa'iidooyin, laakiin dhinaca dhabta ah cajiib ayay noqon doontaa haddii Ruushka uu sidaan dagaal toos ah ula galo. boqortooyada Ingiriiska oo fadhigeedu uu yahay Belarusia ayaa laga yaabaa in ay dagaalkan ay ka qayb qaadato. haddii ay ka qayb qaadato boqortooyada Ingiriiska, dhibaato badan ayay ku noqon doontaa madaxweyne Vladimir Putin. hase haatee, madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa go-aankiisa ugu weyn waxa uu yahay inuusan marnaba ka bixin gudaha wadanka Ruushka. waxa uu sheegay in dagaalkii uu gaab ku yimid agaarka magaalooyinka waaweyn kadib markii ciidamada Ruushka iyo sidoo kale qalabkii ay soo galeen gudaha wadankaasi ay gebi ahaanba ay baaba'een. ciidamada iyo sidoo kale qalabka ayaa horumar gaabis ah ka sameynaya, iyadoo taasi ay u muuqanayso dhibaato weyn madaxweynaha wadanka Ruushka soo wajahaysa Vladimir Putin. sida uu sheegayo suxufi ku sugan gudaha magaalada Kiev, Mareykanka ayaa hub fara badan soo gelinaya qaybo ka mid ah wadanka Ukraine, waxaana u muuqanaysa in Ruushka dhibaato badan ay ku noqonaysa arrinkan. Ruushka ayaa sheegaya in ciidamadooda ay daba socdaan horu socodka kadib markii ay sheegeen inay hakiyeen weeraradii ay ku hayeen dalka Ukraine
kadib amar ka soo baxay madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin. Madaxweynaha Ruushka ayaa markii dambe amray inuu weerarka dib u bilowdo kadib markii Kiev iska dhaga tirtay baaqii Moscow ee wadaxaajoodka. Sarkaal ka tirsan Ukraine ayaa beeniyay in Kiev uu diiday wadahadallada. Inkastoo xalay laga digay Kiev in ay la kulanto madax ka tirsan dowladda dalka Ruushka, haddana waxay u muuqanaysaa dhibaatooyinka inay sii kordhayaan. Si kastaba ha ahaatee, qaraxyo ayaa laga maqlayaa meel u dhow magaalada Baqaar Shidaal oo ku yaala magaalada Fiyafiski oo ku taala koonfurta caasimadda ayaa la warinayaa in dab la qabadsiiyay sida uu sheegayo duqa deegaanka. Dabka ayaa dhaliyay cabsi laga qabo in uuro sun ah, waxaana dadka deegaanka looga digay in ay xiraan daaqadaha oo ay gudaha ku jiraan. Magaalada koonfurta ee Nova la yiraahdana waxaa laga warinayaa in ciidamada Ruushka sida uu sheegayo wararka in ay xoog ay ku galayaan. Dhanka kale, gaadiidka Ruushka gudaha u galaya magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv ayaa sheegaya in saraakiisha Ukraine qaraxyo aad u xoogan ay la kulmeen, taasi oo noqotay dhibaato kale. Goobaha la degan yahay ee Kharkiv ayaa sidoo kale laga weerarayaa ciidamada waddankaasi. Gebi ahaanba ciidamada Ruushka waxaa laga jaray gurmadka. Dhibaato adag ayay haatan la kulmayaan. Ugu yaraan 6 qof oo rayid ah ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ku dhinteen magaalada Oktava oo waqooyi bari Ukraine ku taala. Sida dadka basaasiinta ay sheegayaan, dowladda Ruushka haddii sidaan ay wax ku sii wado, dhibaato xun ayay la kulmi doontaa. Saacadihii ugu dambeeyay, laanta Ukraine ee BBC-da ayaa ka warbixisay akoonka cusub ee qaraxyo ah oo ku dhacay magaalada Kharkiv iyo sidoo kale Kherson oo koonfurta bari ah. Tallaabada lagu ciqaabayo Ruushka ee Mareykanka iyo sidoo kale Midowga Yurub iyo xulafadooda ayaa waxay u muuqanaysaa mid dhibaato badan u noqonayso. Sidoo kale, shirkadda YouTube ayaa gebi ahaanba waxa ay xiriirka u jirtay warbaahinta guud ee dowladda Ruushka. Taasi micnaheedu Russia Today, RT iyo sidoo kale kanaalada kale ma heli karaan lacag xayeysiin ah oo YouTube-ka ama shabakadaha kale ee abiska, taasi oo u muuqanayso dhibaato kale. Shirkaddan ayaa sidoo kale sheegtay in xarumaha aysan hadda kadib iibsan karin xayeysiin Google toos ah, taasina waxay u muuqanaysaa in caqabad ay ku noqonayso. Afhayeen u hadlay ayaa u sababeeyay go'aanka duruufaha aan caadiga ahayn, waxaana uu sheegay in Alphabet ay qaadi karin wax kasta oo dhibaato ah oo dad shacab ah loo geysanayo. Waxay timid kadib markii wasiirka isbeddelka dhijinta uu si cad u sheegay in ay marnaba u dulqaadan doonin dhibaatooyinka YouTube-ka kaga imaanayo. Shirkadda YouTube gebi ahaanba akoonadeeda TV-ga Russian Today iyo sidoo kale RT labadaba way ka xirtay oo wax xayeysiin ah ma haystaan maantadan. Guud ahaan daawadayaal, warkii waad ka daawanayseen janaalkeena Runta Wararka. Saaxiibayaal, waan iga intaa haddaba daawada. Haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share iyo comment-iga noogu dadaala. Waadna mahadsantihiin. Nabadgelyo.